Bismillahir Rahmanir Rahiim. Galab wanaagsan. Halkani waa xog-baahiyaha ciyaaraha. Barnaamijkeena galabta waxaad ku maqli doontaan qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kooxda Juventus oo doonaysa inay dib ula soo wareegto Paul Pogba iyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo heshiisyo cusub u soo bandhigaysa 6 ka mid ah ciyaartooydeeda iyo wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe iyo like saar, asxaabtaadana la wadaag. Mahadsanid. ayna ku bilaabnay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayuu uga dhigan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda xilli ciyaareedkan mid muhiim ah iyadoo tababara Jurgen Klopp uu ku jiro dib u habeynta naadiga Rediska oo sanadkan ku guul dareysatay difaacashada horyaalka Premier League. Liverpool ayaa si xun ugu guul dareysatay isku daygeedii xilli ciyaareedkan ee hanashada markii labaad oo xiriir horyaalka England waxaana naadiga Rediska ay 6 guul daro oo xiriir ah kula kulantay gurigeeda Anfield bilowgii horyaalka taa oo ku khasabtay naadigani in ay iska iloobaan hanashada horyaalka balse ay u dagaalamaan ka qaybgalkooda Champions League ee xilli ciyaareedka dambe ka oo u muuqday mid aan suurtagal ahayn. ugu dambeyntii Liverpool ayaa u soo baxday ka qaybgalka Champions League iyagoo ku dhameystay kaalinta saddexaad ee kala sareynta horyaalka Premier League balse tababaraha reer German ayaa doonaya bandhigii xilli ciyaareedkan mid ka duwan. macalinka Rediska ayaa la filayaa inuu dhowr isbedel ku sameeyo kooxdiisa xagaagan inkastoo uu doonayo in garoonka Anfield uu wajiyo cusub ku soo biiriyo haddana tababara Jurgen Klopp ayaa doonaya inuu heshiisyo cusub oo ka saxiixo xidigaha muhiimka ah ee haatan ku sugan naadigiisa. wargeyska ka soo baxa Liverpool ee Liverpool Echo ayaa qoraya in xidigaha Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Alisson, Andy Robertson, Fabinho iyo Trent Alexander-Arnold ay kooxda la furi doonto wadahadal ay heshiis waqti dheer ah kaga saxiixanayso xagaagan. Liverpool ayaa ka cararaysa in ay wajahdo xaalad la mid ah midii xidigeeda reer Holland ee Georginio Wijnaldum ka oo diiday inuu heshiis cusub u saxiixo naadiga isla markaana go'aansaday inuu dhameysto halka sano ee kaga harsanaa heshiiskiisa xilli ciyaareedkii soo gabagaboobay waxaana xidigan si bilaash ah oo uga hayaamay naadiga reer England. dhinaca kalena Liverpool ayaa war wanaagsan ka helaysa xidiga khadka dhexe ee xulka Belgium iyo kooxda Leicester City ee Yuri Tielemans ka oo ay doonaysay in ay ku buuxiso booska uu baneeyay Wijnaldum waxaana xidiga reer Belgium uu hakiyay wadahadallo uu kula jiro naadigiisa Foxeska kuwa oo heshiis waqti dheer ah u soo bandhigay xidigii hore ee kooxda Monaco ayaa ka labanaya in mustaqbalkiisa dheer uu u hibeeyo naadiga heesta ee koobka FA Cup ee Leicester City waxaana uu qiimeynayaa dalabyada uu ka helayo kooxaha reer Yurub. dhinaca kalena The Football London ayaa warinaysa in kooxda kubadda cagta Arsenal ay doonayso laacibka garabka ugu ciyaara kooxda Shakhtar Donetsk ee wadankaas Ukraine Manor Solomon 22 jirkan ayaa lala xiriiray naadiga Ganariska bishii Janaayo balse waxa uu go'aansaday inuu xilli ciyaareedkan la dhameysto naadigiisa reer Ukraine. Solomon ayaa kooxda Shakhtar uga soo biiray naadiga Maccabi Petah Tikva sanadkii 2019 waxaana wixii intaas ka dambeeyay uu ahaa xidig muhiim ah. laacibkan ayaa guud ahaan u saftay naadigiisa reer Ukraine 80 kulan oo dhammaan tartamada ah waxa uuna shabaka ku hubsaday 18 gool isaga oo caabiyay ka ahaa 7 kale. xidigan ayaa ka dheeli kara boosaska garbaha iyo numbarka 10aad waxaana ciyaareedkii haatan gabagaboobay naadigiisa uu u dhaliyay 11 gool 35 kulan oo uu saftay. bandhigiisa ayaa soo jiitay naadiga Arsenal kuwa oo qorsheynaya in isbedel weyn ay ku sameeyaan kooxda sanadkan kadib xilli ciyaareed kale oo xun oo ay ku qaateen tartamada oo dhan. laacibka reer Israel ayaa noqon kara mid wax weyn ku soo kordhiyay naadiga London waxaana lagu qiimeeyaa 21 milyan oo euro. dhanka Manchesterna naadiga Red Devils ee Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in ay shaki ka qabaan in lagu dhaco heshiiska kooxda Borussia Dortmund ay kaga doonayaan laacibka reer England ee Jadon Sancho. xidiga reer England ayaa ugu sareeyay xidigaha naadiga reer England ay suuqa kala iibsiga xilli ciyaareedkan ka doonayso waxaana kooxda United ay ilaa iyo hadda gudbin dalab rasmi ah si ay ula wareegto laacibkii hore ee kooxda Manchester City. inkastoo ay ku dhameysteen kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka Premier League guuldaradii finalka Europa League ka soo gaartay kooxda reer England ayaa cadeen u noqotay halka ay taagan tahay waxaana si maalin cadah banaanka u yimid in kooxda ay u baahan tahay laacibiin haddii ay doonayso ku guuleysiga Premier League.
tababare Ole Gunnar Solskjaer iyo United ayaa qarsan rabitaankooda xidiga reer England iyaga oo tiro 3 goor ah hore isugu dayay saxiixiisa balse marnaba ma aysan gudbin dalab ay ku qanacdo kooxda reer Jarmal ee Borussia Dortmund. kooxda sheedamada cascas ayaa horay lacag qaali ah uga bixiyay xidigo sugan haatan garoonka Old Trafford balse midkoodna ma soo bandhigin tayo u qalanta lacagtii laga soo bixiyay. kabtankooda Haar iyo qadka dhexe France Paul Pogba ayaa United horay ugu jabisay qasnadeeda balse midkoodna soo ma bandhigin wixii United ay ka filaysay. dhageyste inta aynu u gudbin qodobada xiga fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe iyo like sar asxaabtaadana la wadaag. tan iyo markii kooxda reer France ee PSG ay jagada directornimo ku soo celisay Leonardo, kooxdan ayaa waxaa la xiriirinayaa goolhayaha kooxda Milan ee Gianluigi Donnarumma. qiimaha Milan ay dul dhigtay xidigan oo ah mid aad u sareeya ayay kooxda reer France marnaba dalab rasmi ah ka gudbin xidig reer Talyaani balse 22 jirkan ayaa haatan si bilaash ah uga baxaya kooxda ku ciyaarta garoonka San Siro waxaana la tilmaamayaa in PSG ay heshiis horudhac ah la gaartay laacibkani. sida laga soo xigtay wariyaha caanka ah ee Duncan Castle, kooxda PSG ayaa heshiis la gaartay Donnarumma waxaana heshiiska ka mid ah in sanadka hore uu amaah ku baxo waxaase faahfaahin dheeraad ah laga helin heshiiskaasi. kooxda reer France ayaa aaminsan in 34 jirka goolka u ilaalisha Keylor Navas uu sanad kale naadiga ka sii ciyaari karo waxaana heshiiska Donnarumma uu u muuqdaa mid ah bedelka mustaqbalka goolhayaha reer Costa Rica. dhanka kalena sida laga soo xiganayo jariirada Metro, kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa xiriir la sameysay daafaca kooxda Bayer Leverkusen iyo xulka Burkina Faso ee Edmond Tapsoba. kooxda ka dhisan London kuma ahan keli doonista daafacan da'da yar ee aadka loo qiimeeyo waxaana tartan ay kula jirtaa naadiga London kala dhisan ee Arsenal iyo Manchester United. Tapsoba oo waayihiisa ciyaareed ka soo bilaabay wadankiisa ka hor intuusan u soo wareegin Yurub 2017 waxa uu ku biiray kooxda reer Portugal ee Lexios halkaas oo uu ku qaatay 6 bil kadibna uu u wareegay naadiga Vitória Guimarães ee isla wadankaasi Portugiiska. kooxdan ayaa xidigan bishii January ee sanadkii hore keentay horyaalka Jarmalka waxaana kooxda Leverkusen ay aad ula dhacday qaab ciyaareedkiisa iyo da'da uu jiro aad u kala fog. laacibkan ayaa leh maskax uu ciyaarta si fiican ugu akhriyo waana laacib degan kuna fiican kubadda heesashada. laacibka ayaa lagu waramayaa inuu doonayo ku biirista midkood kooxaha United ama Chelsea waxaana lagu qiimeeyaa lacag u dhaxaysa 60 ilaa 70 milyan oo euro. ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa u furan fikradda ah in Paul Pogba ay ku soo celiso kooxdooda. tababaraha cusub ee naadiga marwada duqda ah ayaa xiriir wanaagsan la leh laacibka reer France waxa uuna doonayaa in mar kale ay ka wada shaqeeyaan garoonka Allianz ee magaalada Turin. kooxda Juventus ayaa u baahan doonta marka hore in ay iibiso Cristiano Ronaldo haddii ay rabto ama rajo ay ka qabto soo celinta Pogba. laacibka kooxda Manchester United ayaa heshiiskiisa waxa ka harsan kaliya 1 sano taas oo ay tahayna waxaa la sheegayaa in sheedamada cascas aysan aqbali doonin wax ka yar 90 milyan oo euro. xidigan ayaa xil ciyaareedkii soo gudbay la xiriirinayay ka bixida garoonka tiyaatarka Riyada waxaana saxiixiisa ku dagaalamaya kooxo ay ka mid yihiin Real Madrid, Juventus iyo PSG. halkee kula taa dhageystay in Paul Pogba uu ku dambeyn doono xil ciyaareedka dambe? fadlan ra'yigaaga inoogu reeb qaybta hoose ee commentiga. barnaamijkeeni galabtana waa inaga inta. halkani waa xog baahiyaha ciyaaraha waa channel cusub oo ugu talagalay in idinkugu soo gudbiyo warbixinadii ugu dambeeyay kubadda cagta caalamka. dhageysta ama daawada haddii ay ku qanciyeen warbixinadeena fadlan subscribe iyo like kanaalka wixii taliyo tusaale ahna inuu ugu soo gudbiyo commentiga. mahadsanidin.